gabdhaha Soomaaliyeed baa ilaaliya iyagana lagu xadgudba annagoo kitaabkii haysana la ilaaha illa Muhammad rasuulullah baa lagu xadgudba gabdhihii la fuulaya oo gabdhihii laga waxaynaya ani Soomaalida waxaan leeyahay war maxaa u dhalaysan gabdhaha hadii aydan project gareyn karin waaya u dhash aabo ugu tahay aniga oo lay kufsaday aniga hooyaday masuuliga ma aabahayna masuuliga ma walaalkayna masuuliga ma hadaba lay kufsaday ani fiktan baan halkaas aan taagna waxa project kali difaaci kara waa sharci gabar la kufsaday hooyana male qabiilna male laandheerana ma aha waana been horta runta waxa ogaataan dadka la kufsaday tacadi loo gooyo kulli waa minority حتى الشباب كدتك إسقرحية وماينورتي لاندير اسمه مقرحية صوتا أسا واحد لا يا أسا واحد سمينا هم مركل يسكو شيبه مالنا أيام وحن كالي كوكسي ولا ودوقا نيمان وحن كالي يعني كوكسي أو أنقوب شوقها واحد يسوي جوابي أو براه بالشدة إسقبتين أو ميلو البكا قيليني نيمان قلال كحيران أو قاركد شيخ هبل إنجليش كتشوقه ninkaas aniga waxa ka dacweeyay wuxuu joogaa wadan xor ah wuxuu ku haystaa baasaboor ninkaas wuxuu ii caayay ama ii aflagaadeeyay ama gabdhaha kale u hanjabinayay inaan laga hadlo kufsi aniga waxaan ahaa xildhibaan hore baarlamaanka 275 ayaa marxanti iiga ahaa iyo ilaahay anu dadka feminista sideedaba ma ahin mana aha dhaqankayga inaan gabar iyo wiil u kala eexdo ama dadka aaminsan sidoodaba gabar baasaan indeeshu waxaan dhaliilaa gabdhaha feministaha iyadoo run ay ka tahay oo gabar dhibaataysa caawanaya anu ma arko ayadoo dhaqaale aruurnaysa ma arko ana eedeeyo gabdhaha feministaha ah hadalhay ku dhawaaqa mana aaminsani gabar Soomaali ah oo feminista ay ka tahay sababta dhibaatada aniga ku jirnaa bal aan ku jirnaa waxaan dhaliilaa meel kasta waxa dhaha haweenka waxa saaya haween oo tirada badan sababta u dhaliila waxay tahay maxaan u weynaa hal dalada anaga noqosaysa oo meel ah marka waxa raba inaad ka daba tago nin waxa jooga Canada intuu iso istaagay meel bay ku jirtaa wuxuu joogaa wadan sharci ah oo Canadian safaaradooda waxay ku taalaa Muqdisho ku taalaa kan Ingiriiska iiga soo hanjabaya oo dhaay gacanta lagu diray sharci buu haystaa safaaradiisina waxay ku taalaa Ingiriis ana horta mid baan rabaa ballan inaan qaado ninka isku daya anigana iska bilaabo ninka isku day inuu anaga baraha bulshada nooga hanjabo oo dibadda jooga wuxuu aaminsan yahay sharciga uu haysto inuu ku badbaadayo asagoo gabadhiisii ama gabadhii walaashiisa ahayd ama gabadhii la dhalatay la kufsaday oo raba inuu mara saar sababta ayaga banaanka ku kufsada waxa ogtihiin Mareykanka ha ahaato oo Yurub ha ahaato ragga u xiran oo gabdha qabsaday timiin oo ka badan inta hooyo single mother waxa ka tagay waa rag ma aha ani inta fiican ragga aan wax ka sheegaa inta 31 sano ina baabiinaya anaga qori gabar haysata ma jirto gabar wax kufsatana ma jirto gabar sharci ku xadgudubtana ma jirto waxa sidaas sameynaya waa rag laakiin aniga waxa aan dacwo ka ah oo raba nimanka dibadda jooga oo baraha bulshada soo fariista oo hebel la dhahay oo qof kasta la helay isagoo passport Swedish haysta Norwich haysta Danish haysta Mareykan haysta Australian haysta inuu iiga soo hanjabo halka asagoo moog in safaaradiisa ay ku taal Muqdisho ada safaaradaadi Muqdisho ku taal ani ima dhaarakay والله بيدان عيد وصار دارن كرين إنيدان عزلوا سهل كرين الشبابنا إنيدان كسر قرب سين كرين كوا واحد أركيسا وريال إسكو شيء أردها هي ما أنت واحد هبلوجي أي تدخل عيان خوارجتي أيو بومبونين يا فيري ميتك وحو صادق يا عسكرتي عيال ذني مركزو وحو ربع إنه دبدي مركا أو كبد بعده والله أنا كبد بعده هنا دكان waxa ogaataan nimanka aniga wax kale ma dhahayo qodobkan wuxuu soconaya ninka wadaadka sheeganaya oo aaminsan in gabar la fuulay oo aayadna iigu soo dariilin kara ani Soomaali ay hal wax baan rabaa inaan maanta waligay gabar uma doodin kufsiga soo dhaxgalaan waa bilaabay waana dhameystiraya ilaahay waxaan hor ballantiina ku qaadaya ama inaan Muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta